Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada xalqadeenan maanta oo si toos ah idinkaga imanaysa kanaalkeena Cabdishakuur kanaal iyo bloggeena Muxtarif. Xalqada maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa sida loo ilaaliyo folderada ama informationkaaga aad u ilaalin lahayd. Macnaheeduna uu yahay sida aad faylashaada password ugu xidhi lahayd inagoo isticmaalna barnaamijkan la yiraahdo secret folder. dabcan barnaamijyo fara badan baa jira oo lagu loogareeyo faylasha, balse ka ugu fiican aan kusoo qaaday waa secret folder. haddii aad rabto waxaa jira barnaamij kaloo la yiraahdo exe log sida shaashada kaaga muuqata. barnaamijka kale waa nooc ka mid ah kuwa lagu loogareeyo, balse sad Muxtarif uga barateen wuxuu idiin soo gudbiyaa barnaamijyada kuwa aadka u faa'iidada badan leh. isla markaana barnaamijkan waxaan u doortay waxa weeyaan maadaama ka hor isku shaqeeyeen oo aanay waxba ku kala duwanin. secret folder wuxuu awood u leeyahay in Windowska lagu isticmaalo, sidoo kale Macintoshka in lagu isticmaalo adoo halkan ku dhufanaya, sidoo kale iPhone inaad ku isticmaasho sidoo kale inaad ku isticmaasho iPhone operating system iOS dhammaan versionadiisa ilaa versionkii ugu dambeeyay imika ee 9 ee yimid aynu kusoo qaadanay xal maqaalkeena today. sidoo kale Android systemka ayaad ku isticmaali kartaa mobiladan Androidkeeda wada haysataan Samsungiga ah. dhammaan faylasha ku jira barnaamijkan yar ayaa ku save garaynaya oo passwordka ugu xidhaya secret folder la yiraahdo. waxaanad kasoo download garaysaa linkigan aan ku dhigay videoga hoostiisa qaybta descriptionka. markaad soo download garayso barnaamijku qaabkan ayuu kuugu imanayaa. sida caadiga ahayd ayuu install garaynaa inagoo open leh, kadibna run baynu oranaa run, kadibna waxaynu iska sugaynaa inta uu yes baad leeday. waxay noo bilaabmaya luqadii baa kuu soo baxaysa okay baad leedahay sidii caadiga ahayd barnaamijyada. next I accept next, kadib saad aragta halkan waxaa kaaga soo baxay secret folder shortcutkaas ayaa kuu soo baxay. shortcutkan marka uu kuu soo baxo dabcan waxaa furmaya pagekii internetka, websitekoodii ama bloggoodii. waayo secret folder markuu sanka ugu soo baxo waxaa jira haddaba imika tusaale ahaan folder ayaa halkan ii yaala. waxaad ogaataa barnaamijkan markaad wax ku xidhayso aad loo garaynayso waxaad loo garayn kartaa dabcan waxaa kuu saaraya marka ugu horeysa barnaamijku password ku xidh password sida halkan kaaga muuqata. marka password baynu sameynaa Muxtarif baynu gelinaa passwordka sida muraayada kaaga muuqata. aan ku celiyo Muxtarif, kadibna okay. marka uu kuu soo baxo barnaamijku waa kan aynu hoosta soo yara dhigano. folder baan ku yidhi ayaan soo samaystay la yiraahdo. folderka markaan furo file baa igu sii jira free la yiraahdo. haddaba waxaad ogaataa barnaamijkan markaad isticmaalayso waxaad passwordka ku xidhaysaa waa folder maaha file. dabcan folder iyo file qofkii aan kala garanayn kan halkan kaaga muuqday linkiga sharaxa barnaamijkan link waa file baa la yiraahdaa. folder laakiin waa ka midabka noocaas leh ayaa la yiraahdaa. marka folder unbaad ku xidhi kartaa faylashaada folder kusoo dhex guro faylashaada rabto inaad password ku xidho. kadib tusaale ahaan imika file ba halkan igu sii dhex jiro free la yiraahdo, kaasaan rabaa inaan password ku xidho isagiyo folderkiisa la yiraahdo. waxaan tegayaa barnaamijkii dabcan aan hoosta soo dhiganay. barnaamijku qaabkan uu kugu soo baxayaa. halkan waxaad isticmaalaysaa add markaad kusoo darayso file aad loo garaynayso. wuxuu yaalay Muxtarif, waxa uu yaalay downloadska baa la oranayay, kadib okay baan leeyahay. halkan uu soo gelaya saad aragto hortiisa waxaa ku qoran log baa ku qoran, macnaha waa la loo gareeyo passwordkii waa ku loo garaysan. haddaan israa furi makon double click garayo ma furmayo ilaa maanta aan la dhaco sababta wuu loo garaysan yahay. si aan u furo oon u arko faylka ku dhex jira unlock baan siinaya unlock, kadibna double click waxaan arkayaa free faylkaygii oo kusii dhex jira. haddaan rabo inaan markaan dhamaysto waxayga log baan leeyahay, kadib waa la loo garaynayaa waan iska soo xidhayaa.
dabcan mar kastood soo xidho waxa uu furaya pagekoodii blogga iska xidh ee internetka. haddii qof kale haddaba uu is yiraahdo iminka gal maxaa ku dhacaya, double click marka uu siiyo oo is yiraahdo gal, markiiba waxaa kasoo horboodaya password buu weydiinaya. marka waa sida aynu ku dooranay barnaamijkan, macnaha faylkaaga adiga oo keliya tunbaa arki karaya, adiga oo keliya tunbaa isticmaali karaya iyo qofkii passwordkaaga haya. marka passwordkan weydiiyey. iminka haddii aan folderkii tago bartii uu ii yaalay ee downloads ah, bal ayna eegna inuu dadku arki karayaan. halkan ma yaalo, waa kaa saad aragto ma yaalo bartan. folderkayga baa la oranayay, downloadskan ku dhex jiray. halkan ma yaalo sababtoo uu qarsoomay. barnaamijka wixii aad gelisaa way isqarinayaan, xaggan cidi kama arkayso. waana waxa uu ku fiican yahay barnaamijkani. kadib password markaad geliso, muxtarif ayuu ahaa passwordkeeni. okay baan leenahay. markaan furno waxaa inoo yaala faylkeeni users muxtarif downloadska inoogu jiray, magaciisuna ahaa uu loo garaysanyay. waynagii xaggan ka eegnay, wuxuu ina yidhi downloadska ku jira. haddii downloadska qabano kama muuqdo bartan, waa kaa kama muuqdo. markaas haddii aad rabto inaad ka saarto barnaamijkan oo inaanu aad macnaha halkii kale ka muujiso ood ka dhex saarto barnaamijkan, remove baad leedahay. yes, markaad remove garayso barnaamij folderkaaga password kuma xidhsana. sidoo kale preferencega haddii aad rabto passwordka inaad bedesho, change password baad leedahay. kadib password cusub baad dooranaysaa. luqadda haddii aad rabto language baad tegaysaa, xaggan ayaad ka dooranaysaa. sidoo kale log iyo unlog waynu soo aragnay, removena way soo aragnay, addna way soo aragnay. waxaan filayaa xalqadda maanta inay ku cajabisay. haddii aad ka faa'iidaysatay fadlan ha ilaawin inaad like garayso, isla markaana inaad kasoo biirto facebook pagekayga adoo kaga soo biiraya www.facebook.com/muxtarif. sidoo kale inaad booqato bloggeena muxtarif.blogspot.com. inta ku kulmi doono darsi dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.